taa waxaan codsanahay madaxweynuhu inuu qoseenka baarlamaanadiisa tixgeliyo golaha uu tago qoseenka ama buuqa ay qabaanna uu ka xalliyo su'aalaha ay qabaanna uga jawaabo dalkuna hore ugu socdo laakiin uu garwaaqsado dalka in loo doortay muwaadin shala uu ahaa berrina uu noqon doono shacabka uusan albaabada ka xiran xildhibaanada uusan caburin gudoomiyaha baarlamaanka uusan cadaadis gelin dadka xornimo uu siiyo waa tii aan ka filayna madaxweynaha kama aan filin albaabada xirto kama aan filin wadooyinka xirto kama aan filin baarlamaankii inuu ka dhigo hay'ad xukuumadda hoosna waxaan rabnay inuu tixgeliyo cid walba qoseenka ay qabto madaxweynuhuna u golaanayo inuu guryaha iyo isbitaalada iyo xaafadaha ku booqdo والله كما في لهايو مدحوينها 2 سنة soo hadda maanta jooga inuu fuliyo wuxuu u ballan qaaday Soomaalida ballanqaadkiisana waxa weyn baa kamid ahaayo qofkii al-shabaab wax yar ay u geysatay inuu magdhow bixinayo guryaha dumana u bixin doono marka kama في لهايو 2 سنة soo wax u qaban dhinacaas inuu maanta wixii doorashada uu ku galay inuu maanta qabanayo oo 2 sano u harsan tahay ma ka filahayo marka waxaan ka soo qaadayaa campaign uu rabay kaliya inuu ku soo jiito bulshada Soomaaliyeed beenay runba waxay ahaataba maantana ujeedkiisa uu ka